المسلمين تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان والإثم يعني كنت وحنا سوي ما ندور وحاول خير بدن من ضد أي كلام خير لكل ما هاي وده بدون ولا يكفي الشنايع كنت هالكلام كوريسين سوي ضد كنت عن حدود السيد ما بالله من حبة ولكن بس ورقي وعلى الشيء يا كل تبين إنه أنت من النهاية أنت متعلم مطلع إلى يحقق فان ورغبة لذلك أنا إن شاء الله بقول لك جاي حتى وحبيبي جو عبدي عمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال هذا حرم ليني وقت بدنا نفديه ووالد يعني ضد حاجة يبان يطلع إلا هذا نفديه waxaan u fadhinaa oo inaan ku dulqaadanna ay tahayna waa danteena iyo danta ummadeena haddayna anagu isdhibin oo naan isku qabanna cid wax loo qabanaysaa ma jirto marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dad ka soo qeyb galay xafladda malaaran ee looga tashanayay danaha iyo aayaha ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Hanslow marka xigo waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u celiyo Samatar iyo guurka ka soo shaqeeyay arrinkan ee isku howlay ee ay dhibtay ee dhibaatadu taabatay ee bal isku dayay inay calaaqal u istaagaan inay ummadda Soomaaliyeed meel isugu keenaan ee yiraahdaan war dhibaato ay haysatee dhibkiina ka tashta runtiina waa guul maxaa yeelay waxaa ka darnaa lahay iyadoo la waayo in istaagto oo tirada warqadka haysa oo qabanna cidra la waayo ayaa maanta ka dhaqaaqay laakiin nasiib wanaag waxa uu sahlay Samatar isagoo goobjoog ka maalin kasto dhibaato ku dhacayso hooyo Soomaaliyeed dhibaato ku dhacayso family Soomaaliyeed isagoo joogo meeshii dhibaatadu ay kaga dhacaysay haddana runtii wax badan oo hadda uusan idiin sheegin ayaa hoos iga sheekeeyay Samatar habeen dhaweyto oo aad uga sheekaysan arrintan runtii waa tacajibaysaa dhibaatada lagu hayo dadkeena halkan degan ee Soomaalida inaysan wax yar ahayn intaas ku xisaabiyay marka oo habeen walba uu ciil la seexday oo maalin walba isagoo xanaaqsan oo madaxa loo hayo ka baxay shaqada waxay ku kaliftay inuu istaago oo yiraahdo bal adliis isku keen dadka Soomaaliyeed si danahooda ay ka tashtaan wixii aqal ka kala qabo sidaa darteed waxaan maragma doontaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool haddaan Soomaalida kale iska daayo meelaha kale ku nool xaafadda Hanslow oo aan deganahay in ay haysato dhibaato aan la xisaabi karin isku raacsan dhibaatadu waxay si gooni u taabanaysaa hooyooyinka si gooni u taabanaysaa halkaan ka dareemaysaa maanta raggii bay ma joogaan intoodii badnayd hooyooyinkii may way joogaan way soo xaadireen maxaa yeelay gurigu iyadoo u dhibaya wiilka ama gabadha ay dhashay hadday xumaadaan oo waxbarasho ay ku xumaadaan ama booliisku oo xiro xabsi lagu xiro hooyada u dhibaya police station-ka waxaa sii socda maalin walba waa hooyada iskuulka waxa taagan waa hooyada dhibaatada guriga wax ka daameeraysanaya ee u istaagan maalin kasta waa hooyada cidda dhib ku gaaray qofka dhibaatada ay taabanayso waa hooyada kulligana hooyada garab ha siiyo ilaahay ajri xasana ha siiyo iyadoo calaasha lagu soo qaaday oo noo soo dhibtootay oo intaasoo dhib noo martay ayay haddana markii bannaanka aad dhimaado ayay haddana intaana kaloo dhiba ay la sii kulmaysaa
I know حنوبة عليها كنت سومالية إلا يسقاش يشد يا كشقيني سومالي يعني هذا أنا شقيني وأروح عصي بالوصايا خويو وابد المهنة الجعل وابد فاميلي الجعل وابد كوي الجعل خويو ويلكن الحري وحبس كجرو وكبقى يصير يترى ويلكن حبس كجرا لكن ليس ويلكن واحد الصومال وقدر ملك عندنا أيام وقال ويكحشوا ليسا نبكي هذا ويكحصن ليسا ولو عايد يا الشيطان سألوا عايد وين استكحصتها ويقولوا لنا تعالى تدين هذه كيلو بيسا ما نتينا نقولها taas marka dhibaatadaas haysato oo ay u jeedo oo ay dhahay tasankay sidee wax looga qaban karaa waa su'aasha maanta hortaan kulligii oo baan ayna wax ka qaban dhibaatadii waa aragnay sidee ficilkii wax looga qaban u samayn karnaa number 2 Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmooda jiray wax ku gooyaan waxaan ku qaban karnaa kaliya inagoo horta koob isku duuban oo mid ah إنه قبيلك يوحى عن قصة تقلي متمدين ينشأ أولي حق يسكتني لكن أنا أستاذ مسيح ولا تعالى لبعض المشهد أنجو مثل أقوله وبالنية ونهيد عبد الرب يسيس وكانوا يبغى لكن ليس له الاستاذ أو كأنه على استفسار taasi waxay horseedaysaa wiilka yarka ah ee dhalinyarada ee Soomaaliga ah xabsiga ku jiro inuusan xabsiga marka hore gelin hadduu galana inuu helo cid ka daba tagto oo ka soo saarto banaanka keento Soomaalidu waxay tiraahdaa niman hadlin hooyadiina wax siiso war inaga haddaynaan hadlin oo naan codkeena banaanka keenin ma waxaan sugaynaa dowladda Ingiriiska inoo hawsho وwaxaan sugaynaa kaasarka haliska oo loo hayo ma waxaan sugaynaa tabajircada wadankan aan la noolnahay iskuulada la dhigano ee aan ku dhex jirno inay noo istaagaan ee iyaga toodi la dhacay ma dhacayso innaga way cid laga rabo inaan wax qabsano oo isku duubano oo danaheena u istaagno oo ubadkeena u istaagno si aysan u ciishoonin berito oo wax ula qabsadaan ama wax uga qabsadaan wadanka ay joogaan ولا هي سؤال الفكرة فلاني إنجليش كاغا dhibaatadana haysato mid sahal iyo iska jiif nooga haraysa ma mid fiirsi nooga haraysa ma mid hal qof iyo samata iyo ariga iyo gabadhaan iyo kulli individual oo uga qaban karna ma laakiin waa mid haddaan u wada istaagno aan hubno inaan ka qaban karno wariyaan xoog badan waxaan nahay 10,000 oo Soomaaliyeed isku tagay hal maalin hadaan raano waxaan rabnaa maxay counselor in halkan loo ku daro oo aan hal qof xaqeena saarno wallahi aan cidiidka ka jiro iyaga ku baahan dadka aad degantahay wadankani qabiil male laakiin nin kasta wuxuu doonayaa cid uu isku duuban oo codkeeda ku xisaabtan hadaa tiraahdo codkayga ku siinaya لكن واحد u baahanay aniga wallahi uu sabina ka wayay waxa loo qabto oo garanaya diska uu saaro laakiin adigu ku xiran tahay inaad codkaaga banaanka keento adigoo isku duuban wala la yaabo marna inaan ku dheeraa laakiin waxaan rabaa inaan xaqiiqda dareenta inaad iska ilowdaan geediga aan ku jirno maalinkaas oo waxaan guuriyaa Soomaaliya waxaan guuriyaa Nairobi waxaan guuriyaa Dubai waxaan guuriyaa Afrika geediga iska dhiga daga horta halkaan deganahay anaga dantaana batay waa degnay waa in aan u xirnaa dhaxda sidii halka aan ku noolahay aan u noolahay
بريت هذا الدور وجوري كنا دمنا لكن ما لنا أجر تمشي نروح بعضها عيال كذا نروح بعيد أدين جوري أو بعضها دكتور أو بعضها وأنا سأستعد كور استاذ ويست ميدل 6 هوسبيتال قبل سوماليا وأمورا قبل سوماليا وأورني أيها تتجرا خمسة أمرجسي ورقة تتجي قبل لي والسيحي إسلامك عبادة على طول أيش الشغل هاي كوميكش لو بنوض كوميكش لو بنوض كوميكش عروت أي عروش المدير والصالح عند وقت الشيء يعين استاجيس يعين هاي سكبنا ولا تيسد هاي بلادنا هاي سكوا على يوم مجبتو وايو سومالي سكتوا ولا كتير كنت أقول شيء مونيتاش سوماليين وأما قطع وما دوا حيو كنت أقول نقول بقولوا خطي سيدو شيء سبب هذا العقبة الصغيرة وقول أنا هذا العقب الصغير حركة من الوقت بس أنا حكومة وأنا حكومة ولا العقد الصغير حكومة ولا لكن حرم أنا وقت أمريكا أديك العقد على بعض بوزين كأكريستي شغالها أولتي ما أنت سبحان وقتها لكن ما أنت الدولة العقد الصغير حدي أسقط إلى الرمجيرو إن أتبكش أما أتفرمت أسقط إلى والقول إيمانيا فريسبل حنا الولاية كوميونتي هذا والعقد وكان جوجينا يدور فريسبل المشي هذا هو الإنسان مركب ماشي لقاك يماشي لقاك نسي هذا هو دريمي أي إستريت أوي واحد جوجينا سوا الله واحد شخايس أي قال الله يطول مقارسة وعي أي شيء كان راعيسا دمتو لا تفرميسا دمتو هاي الصوماليين مفرقة كوميونتي يركع الصوماليين العقد السيء وقاعدة دمتو هاي الصوماليين مفرقة ساسا كلفتي ماتا إن سمتر يتيم كيسو أي صوبان دقان برنامج كان إنه نقالين على بحنو سأنا روكش بشان وغير ما تقول عليه هذا كهذا النعم العالم وروح لما تيجي كنا يستوى حكمته أقدر عدة تبكي صومالية وعدة آمنية يستجيب صومالي أو لقد دايرين اليوم قفكي العقل أروريبا للي أما سيغا لنتغي أما وحبوك سميستي أما الهبل ولا أدري اسأل انتيا يا هذا وهي حقيقة هاي فتي هاي الصوماليين والعقل الأروريين لوغا قاضي وليو وحياة خيري وحكو مناك سميسن جرين لآمني حتى لا آمن كل آمني كسو بيوان تاسي مركا وحيد سومالي وحيد ترى بيتا على runta dambe ba saxda taasi waxay qayb ka tahay dhibaatooyinka haysto war isku aamini lahayn laakiin ogaada dan aan dan loo deeynin ma qabsoonto ogaada haddayna is-aaminin waxba ma qaban karo haddayna is-aaminin وحوما طبعا كرم ولا ليال دقالها عن بحنينا وامد إنك دنتين كنترتو وامد إنك مقصوم قرآن وامد قوت كينا أمره قبرين I know هاي يوضي والبمانك استوحوا كفكرة بريتو عروتا الحين قدوها وحنوه در العروت وحنوه در العروت أنا استعى أوراق ماشا فلسانة كون ما شريك وزرجي فكون ولا يستقبل كل because مبدي أيموت دكتي يوسف تبرينا أيموت دكتي يوسف مدهينا أيموت دكتي يوسف حلينا أيموت دكتي يوسف تاجنا أيموت دكتي يوسف تاجنا دكتي يوسف كفكر يشيل أو بحياة أو عير أو بحياة أو contribution أو سكوت أصله كون ولا يأيموت دكتي يوسف أيق عن سكوا أيموت دكتي يوسف قبيل سكوا يستأيموت
contributionka maanta haddaan xisaabnay aan ku dhisan karno center annaga aan leenahay oo cidna dhahaysaa maxaa u gasheen iyo maxaa u timaadeen iyo maxaa u samaysateen iyo maxaa u shaqaysateen iyo salaad maxaa u dukateen iyo ilmihii maxaa u barateen iyo dugsi maxaa uga dhigateen cidna dhihi kartaa iyo sidii aan ku gadan karnaa waa 150 pound oo aad bixiso 3 years 150 pound oo member aad ku noqoto 3 years oo 6 bilood aad ku bixiso I'm sure lacag badan ay naga baxdo waxa kaloo taasi dheer hooyada Soomaali ama odaha Soomaali ama qofka Soomaaliya markuu u baahdo warqad in loo qoro wuxuu u tagaa community Soomaaliya afartan baa soddon baa laga qaadaa weliba community-ga Soomaaliga oo saxdii sheegay ma aha inaan jaayfeeyay ama xumeeyo community-yaasha Soomaaliya ma way jiraan qaar fiican oo laakiin haddana waxa wax qabasho kasta waxa u diidayo Soomaaliya bay tiraahdaa gacan gadaal laga haysto horeeyay ku go'ayso dib baa laga haystaa wax weyn ma qaban karo wax si ku xiran ma saadateed marka kaas marka maanta u geyso afartan oo waqad ku qor isfaan uu ku qori karaa laakiin waxa laga yaabaa inuu sadaba geli karin isagoo gadaal ka baqay iyo community-giisii iyo waxqabadkiisii asoo ka baqayo dowladda Ingiriiska iyo xaafadda Hanslow asoo ka baqayo ayaa laga yaabaa inuu shaqadii sii daba geli waayo laakiin hadda samaysto sanfa adiga aad leedahay oo lacagtaada la baxday waxaad awoodaa inta u timaado groupka meesha joogo oo shaqaalaha oo adiga aad doonto adiga aad samaysatay inaad tiraahdo shaqadan iyo shaqadan iyo shaqadan iyo shaqadan iyo shaqadan la iima qaban sababteed inuu qabo waayo oo miiska ka raaco waxaa jira shaqadan ugu qabto si simple ugu qabto adigoo raaliya walaalayaal marka dhaqaalahaas yarka intay isku darsano oo dad nool iska dhigin oo dhahda xiran war cidna kala taqaanaa ma jirto wallaahi inaan Soomaaliga ka yimid iyo Soomaaliga Itoobiya ka yimid ka Soomaaliga ka yimid Soomaaliga ka yimid iyo ka Puntland ka yimid wallaahi aan ka garanay kullu Soomaaliya ogaada gabar Soomaaliya ayaa waxay ka gashay waddanka UK oo Birmingham degan oo waalidkeed ku dadaalay qaralaasi ayaa waxay gashay sanadkii la soo dhaafay GCSE oo qofka tobanaad waddankan ay noqoto UK oo dhan ay waxay noqotay number 10 waa wax lagu farxo gaaladu soo istaagay way hambaliyeen Soomaalida waxaa laga yaabaa isweydiinaa say ku gaartay horumarkaas su-aasha isweydiina ay ku mashquulsan yihiin war adinka wax isku ogolaada maanta hadduu gabar Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed oo waddankan prime minister ka noqdo war waa ku faanaynaa Soomaaliya loo yahay cid kastana way ku faanaysaa ee Soomaali ee waddankaas ogaada Barack Obama maanta wuxuu madaxweyne ka yahay waddanka Mareykanka inta sharaf iyo haybad iyo karaamad oo dadka madow kaliya soo jiiday lama xisaabi karo oo inuu ka mid ah haddana ogow shaqo isku mali laakiin muxuu sharafta iyo karaamada loogu soo jiiday madownimo uu soo jiiday afrikaanimo uu soo jiiday asoo asalkiisa afrikaanimo uu soo jiiday sidaa darteed marka at least qofka Soomaaliga hadduu meel tago oo wax noqdo waxa ku anfacaysa kaliya in qofka kale oo ajnabiga ah ku tiraahdo qofkaasi aniga ka dhashay waa Soomaali oo ugu faanto intaas aad ugu filan walaalayaal marka أنا هذا كجعلي إن أنا تكون أو صاقع بيو لكن أنت لما يصير دبعتنا ما يصير أروار مريك الرو ويجاري كمان حل دبعنا وده ويا لك كمان كانسلر ويا لك كمان وحنا ضل ويا لك كمان عندنا اللي عندنا مرتاح مجلسه وواحد إننا جنب الحرام وين جاري ناي مرنا يينا إنه سليم إنه يلا سليم عندنا كسر يسمى إننا كنا كسر يسمى سومالي كسر يسمى قبوا مثل أنا هالك نقول سكاي كثير لكن قبوا على مدة كلام لهانو إننا على كسر ونجيل مدة كلام إن لا تطلع ونطلع جالس كريم أو واحد يسميني واحد هو نكسر سمينه
500 oo Soomaaliya 12,500 oo Soomaaliya oo isku duubantay miyaa wax absan kari miyaa meel isugu imaadaan oo howlahooda ka samaysan kari way samaysan karaan miyaa shaqaale ayaga dhexdooda oo u shaqeeyo ayaga beekareeyaan oo dhallinyaradooda wax baratay oo jaamacadaha ka soo baxay oo waxbarashada diyaar ku miyaan isticmaali karin waa isticmaali karnaa waa samayn karnaa waa awoodna aan samayno action diyaar aan dhaqaaqno hafiirina mid ka maqan intaad isku timid intiina isku timid aan ku dhaqaaqno qodobka saddex gudbo waxaan runtii aana guda kala barnaamijka aan u dhimi maanta runtii aniga waxaa igu horreysay barnaamijkan maalinta ka horreysay ee halkan aan isugu nimid aadaan ugu farxay waa soo dhaweeyey wax badan baan xodogaan lahay jaaliyadaha Soomaalida dhammaan la shaqeeya UK oo dhan dhibaatooyinka jiro ee Soomaalida haysto iyo qaabkii u haystaan baan ogahay waxaa marka looga bixi karaa haddaan soo koobano markii waxaa waaye sidaa hore ugu sheegay inagoo isku duubano waxaan isku soo qaadnay marka samada lagu dadaalay laakiin Soomaalida waxay tirahdaa farqi iyo fooma dhaqmo oo isu keenay dadkii waa soo aruuriyey waa qayliyey wax badan waa soo qabayey waa aragtay shaqooyinkan oo soo qabtay guriyii waa tegey caafimaadkii waa tegey waxbarashadii iskuulladii waa tegey booliiskii waa tegey qolaba waa la soo furo diyaar baan idiin yidhahdeen aan la qaban intaas markuu soo dhameeyey ayuu suuqii yeeray oo war Soomaaliya waa kan intaan aan soo dhameeyey sideen u qaban karnaa oo qabsan karnaa waxaan soo jeediyey marka fikir ah in la helo xaafad walba in laga helo dhowr qofood oo matasho maadaama xaafadaha Henslow ay badan yihiin Soomaalidu xaafadooda ay degan tahay xaafad kasto in laga keeno dhowr qofood isku timaado kadibna laga soo dhex saaro 15 qofood ilaa lama wada maamuli kareen dadku wax wada maamuli karaan 15 qofood oo maamusho oo shaqada loo qabato oo hawsha wado oo iyagu isugu yeero oo barnaamijka fuliyo dhallinyaradii samadan oo ka midka ahaana waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan oo shaqadii fulinta oo gacanta ay ku hayeen iyaga gacanta ku hayaan laakiin maamulka kore iyo shaqada sida ay u soconayso cidda laga rabo oo inay samayso ay tahay waa dadkaas 15 ah oo isugu jiro hooyooyin oo isugu jiro aabbayaal oo isugu jiro dhalinyaro oo qofna uusan ka maqnayn 15 kaas marka dhexdiina laga rabaa in laga soo saaro ma aha inay samatar iyo groupkoo soo saarayaan laakiin dadkiina isku yimid ayaa waxaa laga rabaa 15 kaas qofood oo xaafad kasta ah oo Henslow inay iska soo saartaan oo 15 kaas qofood ay noqdaan kuwii wax idin maamulayay oo shaqada ay qabanayay oo la shaqeynayay dhalinyaradaas yaryarka ah ee diyaar u ah inay idin shaqeeyaan oo samatar ka mid taas marka sidee lagu gaari karaa waxaa lagu gaari karaa maalintii dhaweeta baa la soo qaaday barnaamijka sidoo kale 12 maalintii horeysay hadda isugu nimid waxaa la 12 qofood la sameeyo oo hala soo dooro oo guddiya laakiin dib loo dhigo waxaa la shirka dambe hal isku yimaado si dadkaas loo helo aniga waxaan qabaa fikriyan mar dambe yaana dib loo dhigin intaan ka tashato hal iska soo saaro 15 qofood xaafad walba way joogtaa maanta xaafadaha ay ka kooban tahay Henslow waa loo idin yahay 15 kaas qofood ha noqdaano 15 qofood oo barnaamijkan furin lahaa oo campaign-kan sameyn lahaa 6 bilood kadibna aan target ka dhigano inaan meel aan inaga leenahay aan gadano oo lacagteena ku gadano oo cidna aan ka bariyo war target ma ka dhigi karnaa taas target ma ka dhigi karnaa diyaar muu nahay kulligeen ubadkeen inaan badbaadino diyaar muu nahay nafteena inaan badbaadino diyaar muu nahay inaan hal mid noqono diyaar muu nahay kulligeen waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu جزاك الله خيرا عبد العمر
meeshii inaan kusoo noqnoqoto maanta min hadalkii celin waa laga fiican hanislow jasiga kasoo bilaabkaa ilaa frankfurt ay ku egtahay aan gacmaha isqabsano one nation aan noqono boqol iyo konton baan xaba nagala dhigayso waxa faa'iido aan heli doono ayaa ka badan muhiimadii marka anigu waxaan leeyahay hooyo ahaan gacmaha aynu isqabsano waxaan wada samaysano dhibna allah naga qabto waa dadaalayna insha allah liibaan haddii aan idiin sheego diiwaan iyo maaragtay farxaan waxay ka mid yihiin guddiga jaaliyadda Hanso Somali Community magacaas maaragtay hel sare oo yiraahdo khudbad baan ka soo jeedinaa maadaama aan nahay dhalinyarada xaafadda وأنا تريي هل دوينا سوماليا ووضع كتشوف بدنا بدنا نبدأ ستريس أو مركا شيء يعني بالله هو يكمل هي وضع كتشوف أفريقيا كتبت مركا وحلوسة شكلية وضع كان برمبرية قشني واحد مجرم بس وضع كتبت كوريا لقاسيه كوريا كيسكسون بقى برمبرة وديش ويا لمبر لسيه وعلي مرك لمبر كيه وعلي وعلى غلطي والدولة دينا محمد قبلنا كاسر حيت there is animal in my house دولة دي animal ترى مدي واحد وصل كاي بس أنقول ما لنا إلا الباك هذه animal كانوا في كتير ماشيين بس الباك وصل كاي ويفوتي animal كان يشيء is over there قال مركو يا واحد كنت أنا مركو oh my god Jesus لما هو يموت بس مركز هو يبغى مركو برا عكي أنا أكتر في animal بفي Jesus هو حقوق تبرا برا ما قاعد مركز حتى and there is another Jesus in there والله تبرج كده ما نسى وأنا معاه حاجة من أول مامي أنا بعد فرد علي نبغى جريودي مركز سيد لوي قالوا تقبل على ضلين حواس شغلة مركز حواس صوت مين بعدين ميت كدون إن نبغى سوى أمي واحد جبت حواس يجوا ninkii wuxuu haragaaska qaadka cunay oo iska marqaamay soo marqaamay iyagu kusii waxaan baa dareemayaa aniga tiro maxaa sameeyaa markaas ma godka iska dhex gashid godkii isagoo iska dhex jiro iska dhex marqaamay raggii waa soo qabtay ayagoo waa meydkii wada meelaha inay dheeyeena hadheen war ninka aawa mid ka mid ah wuxuu yidhi bal godka qoonaas وكل قناة تدوم دقيقة برا دقيقة تخيلي والله من جنبي بيت مرة صولا شكلها قصة كنت أسكوت قفتنا قصرنا الستريس كلام بها يحكي لها هاي ستريس ما كلوي تفكرت يعني إن شاء الله بس هالشيء كان لدينا هنا لكن تلعب القاعدة شو بعمل هاي آخر ساعة جبتي صدق مدو يهلع بس جايبة إلى سنة التهابين كسر أول إلى سنة التهابين كسر مركز با هابيك كوبان وفي رياضرو سيابا دوك شاكون واسكو دقيقين وقالوا وانا هابيك لو سدو كلام استحسن سدو كلام markii dambe waxa fikiray saddexdii madooba waxay dhahay markaas dhibka xaqu ka jiro waa tacab
waayo habeen kasta tacad way tala arko markaas baan loo imaadaa ee waxaan samaynaynaa tacad baan iska dhiibaynaa annaka waa kaasaa dib lama arko tii caddaaya habeenkii hore iska dhiibeen yay kii caddaan buu ku dhegay ula foqa habeenkii koowaad habeenkii labaad waa ka fududahay marka 3 madow baa soo hartay mid kaloo fujistay habeenkii saddexaadna kii saddexaad habeenkii afraadna kii ugu dambeeyay uu halkaas ku dhegay markuu halkaas ku dhegay ayaa sicir ugu dambeeyay weeylaan wuxuu yiri ukiltu yawma ukila thawr abyad waxaa la cunay maalintii la cunay saci cadaan ee maanta ha moodin maalin hore la cunay marka qisadan waxaanu oga sheekeynaa waxa weeye inaan ka soo istaagno cusrinimada iyo inaan helno isku duubnay because cusrinimada waa waxa kala furfura ayaga hadda oo hal xabay ku bilaabeen waa kaasa hadda ka ugu horeeya haddaad dhigtay dee inta kaleetana waa kaasa way daba raacayaan waayo waxaa la yidhi jirka bini aadamka hadduu qofku hal meel ka danqado ama hal meel hadduu maanta hadday halkaas ku xanuunayso oo xanuunkaas aad dareemaysid laba wax baa kaa soo gaaray waa hurda la'aan iyo hargabkaasoo la dagaalamayo bakteeriyaka iyo hurda la'aantu xanuunkaas daraaddeeda marka waxaa loo baahan yahay inaan hal qof isku wada noqono kulligan insha allah oo hal qof maanta hadduu xumaan dareemaya ama hal qof uu jiro dareemayo jiro nooc kastaba ha ahaatee inaan la wada dareemo oo la wada xanuunsano baan doonaynaa insha allah annaku marka labadan aniga farxaan waxaan u hadlaynaa dhalinyarta reer Hanslow codkooda waxaan dhalinyarta reer Hanslow ayaan u hadlaynaa waxaan research ku samaynay dhalinyarta la midka ah xagga da'da kuwa ka weyn iyo kuwa ka yarba marka waxayna dareensiiyeen oo kuwa qaarkood baa waxay dhaheen guriga marka uu imaato qadarin ma helno hooyooyinkana ma qadariyaan aabooyinka kaba daranba qofka waani maba helnaba ama qof wax noo sheego nala tali mana helno waxaan kaloo ogaanay inay dhaheen waxay kaloo dhaheen horumarkana laga soo hor istaagaa anaa saas u soo gaabsho laakiin waxay dhaheen maanta haddaan gamacsanahay inaan barto course say like engineering maamada dee cunug kale waxay arkaysaa medicine barto cunugeeda waxay rabtaa inuu asagana medicine barto engineering iska daaway leedahay faalan baa tahay kaale medicine meeshaan ku baran intuu yaqaano sheegaya marka kuwa badanaana waxaan kusoo aragnay meelaha lagu ciyaaro playing places playing grounds other places marka meelahaas oo dhanna waxaa wada jooga dee waxay daraagsi ka baranayeen marka halkan waxaan damacsannahay inaan ku furno meelay ku wada ciyaaraan oo dhalinyarta iskugu keeno waayo meeshaas ay tahay hadduu cunugaas maanta wax soo gaaro faamilkoodii waa la wici karaa aan ka warhaynaa hooyo xataa way nagu ogto meel kalsoon tahay ayuu joogaa cunugii insha allah عبد عمر يسوع بعض اللي وحبعض البنات نسيت معه ما أنتم حالك ربع حداتين أبوين كيوهين كوا الله من أصوب الشتاء أنا بعد اللي لنا وحنا مستعجلين إن سمعت رجال مستعجلوا عن السنة كوميونيتي أنا جنوا خاصة وعن عند بوس أولين أم تكان الدولة الحكومية أو الشقية آية هنا يوم مستقبل كان marka mid kale waxa weeye inaad gacanta taagantana tiraadaan anagu Soomaaliya 20 sano iyo 24 sano bay soo dagaalamayay dunida ka hartay marka si dunida waxa to mustaqbal noo soo jeedno anagu diyaar ma nahay hawsa assalaamu alaykum wa rahmatullahi أنا على ذلك هذه قاعدة بالعين هذيك لما قارن يساعد على أني هو أصلا كويا له هذه
وأنا أسكت موجودة Soomaali waana kana haddaan maanta saas ugu duubannaa waxna jabin kara ma aha laakiin maalintaas aad iyo aad baad umahadsantihiin Farxan iyo Liibaan aynu waxaan ku soo dhawaynayaa maaragtay mikrofoonka abshir oo halkan uu dad maaragtay xoogaa saacad iyo xoogaa ila fadhiday iyadana maaragtay badanay maaragtay dhiirigelinayso wacyi geliso dhinaca dumarkana maaragtay ku ahaato oo ka hadasho muhiimadda in la isku duubnaado in la ismaqlo in la isdhexgeliyo iyo in la isla shaqeeyo waxaa mahadle oo kale samatar oo wiil dhalinyaro ah oo isku xilqaamay in aan maanta horumar gaadhno haddaan nahay reer Hanslow xaafado badan baa degan xaafadahaas waxaan u malaynayaa weli maysan soo helin baan u malayn samatar oo kale laakiin inagu nasiib baa yeelanay wiilal yar oo dhalinyaro ah oo maanta danteeda gartay odayaalka waaweynaayo jooga hooyooyinka waaweynaayo jooga intay inoo soo fikeen haddana inoogu soo hogaamiyeen arrin aad u wanaagsan runtii waa wax aad iyo aad u nasiib badan haddana waxaa nasiib darro ah Hanslow aad bay Soomaali badan aan ugu dheganahay maalin walba oo shir la qabanqaabiyo ama maalin walba oo aan dhahno waxaan isu keenno ama maalin walba oo shirkeena laga hadlo inay saddex ama in yar ay imaanto horta waxaa nasiib darro ah laakiin waxaa la yidhi dib ma leh horumarka laba ruux way gaadhaan runtii intaanaan meesha wada fadhino haddii aan marka hadalkiisa aan raacno ama fikradeenu fiicana inoola soo jeeday aan raacno horumar baan gaaraynaa yaanan dhihin cumar baa maqan iyo cabsaa maqan yaana meesha la fadhiisanin runtii samatar arrin aad iyo aad iyo aad wanaagsan buu noo soo jeediyey community oo Hanslow ah ma haysano runtii anigu horta weli ma arag hadda community way tahay iyo iskuul way tahay waa arrin aad inaga inoo qusaysa wallahi aniga kolley talo waxaa iga ah dadka aadna ma aqaanin microphone intaan qaaday weli kuma hadlin waa iikow iga raali ahaada aadna waxaa iga tala ah kolley arrinta hadda maanta lainoo soo jeediyay aan qaadano runtii lacag 150 gini ayaa adress walba lagu qoray 750 bay noqotay wallahi 150 shilin waxaa la imaanaa 150 baa waxaa la imaanaa astaha oo wiilka ugu yar igu garkabo 85 gini dantiisa maanta ma aha laakiin isagoo bixinta balaaya qabsatay oo isagu inaga daafacay nooga badan 85 gini aan la galayno jaydiga raalihaada marka waxaan idin sheegay horta qiso yar oo aniga ay qabsataan idinka sheekeeyay waxaan deganaa Hanslow waxaa la ii geeyay Feltham waa la igu dhunsureeyay Feltham hadda ka hor wiilkay oo banaanka fadhiya dhalo lagu dhuftay 8 qodob baa la talay isagoo dhiigaya ee booliiska iyo ambulance ku imaadeen way qaadeen wiil yar cadaan iyo madow waa ku dhuftay wiilka cadaanka iyo wiilka madow markay ku dhufteen booliiska daqiiqad maysan joogin noo imaadeen gurigan bay galeen baan ku dhahnay wiilashii waxaa la yidhi horta wiilasha ha tilmaamin annagaa raadsanayna waa lagu cusreeyey waxaa in badan bay sheekada ka socotay 14 bari bay yoon weera ahayd habeenkii aan seexan jirin guriga lagu soo tuureeyaa baawurka ana wada la ii dhigtaa isbaaro booliiska oo maqlaya anagoo telefoonka ku jira booliiska iyo iyagu leeyihiin ku noqo Soomaaliya meesha maxaa ku keenay wiilkaaga waa dili doona adigana guriga ugu gubaynaa booliiskana way dhegaysanayaan waan maqlaynaa misbaarka sug annagaa soo soconay waxaa dhacday sheekadii inay nimanka baaskiliga wata agagaarka la keenay hadda kadib oo la dhaho nimanka baaskiliga wata bal aan aragna dadkiidan dhibayay
إلا وي بيصير هاي تكوي كلا عقل يقولي هاي كلا يعني نكمل بوليس كهالسلو يا صباح والله نوسو كلي جري إلا بنا بلوك نوي ما جري والله إنه وحي يقولي نك واسكشيا كيسن جرنا وعنك ونلا فريستا إلى ساعة يبرد كل قال استفديا وحي هو في فيليا نك بنات كبرني وانشيا كيسن نك وحي horta dumarka Soomaalida aad u wanaagsan wuxuu yiraahdaa booliska dumarka Soomaalida waa dadka kali ah ee wadanka jooga kuwa Ingiriiska u dhashay naadaha ka dhigay ee ugu karti badan weeyeen laakiin dhibaatada waxa ugu badan weey Soomaalida nimankeeda aad u jiraan bay afmariyo sababta raadiga ah anaga kama dhigin waxa ay yiri booliska wuxuu yiri gabdhaha Soomaalida aad bay hadday noqoto isbitaalkiyada taagan iskuulkiyada taagan ilmihiyada jiidaysa shoppingiyada samaysa wax walba iyada samaysa ragini maxaa ku dhacay weey wallahi ragana way joogaan baa ku dhacay laakiin anaga ka badan nimankii dagaalada ku soo dhawaada anaga aad uga badan baa ninka kasay ay sheekay wuxuu yiri miskaaray waxa ugu daran in haysta ay kala sheekay waa hadalka runta ay waliga adkaani loo biiro wuxuu yiri waxa ugu badan ee dhibaatada ay haysatay anaga booliska ka sheekaysan waan tusidoo samadka waan uga sheekaysan dadkada hadda ka hor wuxuu igu yiri booliska waxa ugu badan weyn ilmihii la xidhaa ilmihii Soomaalida ah dabo ka mala biyo wuxuu yiri lawyer wuxuu qabtay mala biyo anaga anaa lawyer wuxuu qabnaa anaga sugaa ilaa lawyer waa ilma ajnabi oo kale ilaa ajnabi badan baa wadanka joogay hadii uu noo imaado ama aan lawyer ka iyaga wadaan ama lawyer ay yaqaanaan bay soo qaastaan wuxuu dhibaatada ugu badan lawyer in haysteen community ma haysteen wuxuu yiri dad police community idin kuma jirtaan wax police community oo Soomaaliya Soomaaliya ku jirto dhibaatada ugu badan weey maanta waxa ay haystaa community la'aan maanta Soomaaliya inta arrin uu ka hadal qaado waa intii police ka arrin ku sheegay runtii waxaan leeyahay hadalkeeda ku sii badan Soomaaliya aan taageerno aan isqabsana gacmaha arrinteena way soo dhamaatay 6 bilood baa inoo hadhay family kasta 150 gini oo waliba uu bil ama u bixiyo ama laba u bixiyo ama hal mar wada bixiyo ma uusan waayo maanta laakiin waxa inuu jirta ma ogi hadii ma kulli xaasnimo kuma jirto maanta dadka la igu dilay kulli wadii wada helaysa ma garanayo wixii inuu dhex jira danaheena aan aqoonin marka Soomaaliya hadaan nahay aan istaageerno arrintan iyadana aan ka fiirsano si fiican والله سمعتنا متابعين عن كل إن بدن بان أهل كهذا هذا وكهذا يا أنا بدي أبغى هاي هدي بحر اللي هم قل يكون كهذا يا هدي كسر أمر اللي هذا because حمل كذا على سؤال كذي كيو حالي الدخل كتشوف على هاي الدخل كتشوف صدق كتر كم يعني جد marka arintaas aan soo gabagabay aad baan u mahadsantiin qof walba saaxiib iyo uu leeyahay qof kale uu sii sheego السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا أبشروا. السلام عليكم. وأمرتي بورس هم كنتم سأستعمل. لكن واحد استوى على قوة هذي عربي وابنبي عرفنا ما تتعلم. أبغى ترسمت أو تتعلم. سبب القاس معها لك نوع القاس ووحنا كنا نفعه وأحسن من شاف قارن أماه وقتي وسنوات كريه وشافكم السيسو وما توسو الساعة أنا صومالي إنه ماشان تحسب استمروا الدبل عيالك يكون كل اللي نبغى عاود بس إلى استبقى ما أنت حاجة حسين بدون عيالك كتيرو وحاول استعجلوا قبل الصومالي لبضوا يكونوا لي حالسو وحاولوا يا شجاعها وحلو أروع عليه حبسي على البوكدا وحيل أكمل لنا جل أورش قيموديس فوق قلادي هو يكسر وحيل مسؤول كتاشر ديالا مركي السود دايم يكون خبر خالصو حكي وعيدين هب وحفرش السود كيش قصي لها حتى شقتها شقي سود قصي لها وحاول عنك رجوي نجيفا رج السياسة وحاول قومي فدقدر إنه كرسي تجارما سومالي أنا حتى إنسان ما يبغى نقولنا رئيس وزراء ونقولنا وإحنا كحرنا هذا الشيء كنا يعني نقول بأقوتي سهل كجاسي سنتها
وصوص عركنا حمس روحة هستوى هندي بس كمان تشوجان وجاري كنا سيرك جاري كنا ونشير إيوه متقبسي يعلون فيه قبل قفوا بالتراي ملاها قبل أن كذا لما ما تدا سوء ترسمه قفوا الوحواجنا هاي هذا قبل كي كل دول لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالى ولا علينا أكمل عليه الصومال وقت أفرتك سنة عشر إيمان كل أيام كرسي كل كلا تعرف قبيل كي ما كان حال صار حتى أوغاني هذا مسؤولين في كلامها مسحات توقع عمر بن قداد وأنا كويج رضي الله عنه يبقوا لا مسؤولين وعراين وتا الصومالي أو سقول كله وطن كنا كلا قايمين لبعضنا واحد تعبنا يصير دومرك مساجد وعكس شرع عنهم لبعضنا كتاج وإن على حسابنا وحلو كذا ولا عكتين أو سوء إذنه وإن على حسابنا منك قبلنا منك دورنا منك نطاو ما أنت وحواي دومرك الصومالية يمكن كستوه هستو أيضا شو كنت إذا أنت بحكرته مركزيات تجدي شيء سمعت إنه لو استاجع عملنا وحواي قرب كيسنا استاجنوا أو ولا شقينا أو هي لا سقف كل مسؤول داعي هاي ولا شقينا حتى قبل ما أنت ما نحب قاعد وحلها شو ماشي بس واحد من جنب الصومال ولي ظهروا مكانته واحد تبقوا نقدان جاهلين ونقدان توان سنتري على مرة واحد راقف كل من أهل يسك الشقاتير بس كحديث هرسر القطوع ما هنا أفضل عنكم مكناتي قبل الدبن ولا شاء ومن هذا الحرق عم بديك هستو نعم تروح ما ناس عم بقص ليسو أيده كنت هذا تعال هذا إذا دب كثير الصو ففهم إذا دب كأذب هستو أنا ويصل صعدة بديك مكان معها مركز هذا الشغلنا إلهي لك عشان وحالي ممكن ما نسوي ما له إلهي القصة إلهي صوم على التوفيق الهواء في تشيو هو حق إلهي كوستاج على أنا قديمه إلهي أولادي أولاد إسلام كانوا حفظه هو عقلي أدوب وشقة سلام فنقول ما يسمى سمو بروسر soo hayantay waa hilinka nabadda ummadda soo hayantay waa hilinka nabadda ummadda soo hayantay waa hilinka nabadda ummadda soo hayantay harsanaysa maanta bulsho weynka hanislow Somali community harsanaysa maanta bulsho weynka hanislow